بسم الله الرحمن الرحيم maanta waa 17 December waa maalintii xasuuqa loo geystay halkan aan taaganahay weerarka ka dhacay lagu soo qaaday xarunta xisbiga wadajir halkaas ay ku geeriyoodeen ayna ku shahiideen 5 wiil oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed xisbiga asagoo arintaas ka duulaya wuxuu go'aansaday inuu maanta dhigo barordiiq lagu xusayo looguna duceeyo dhalinyaradaas ayaga ah laakiin waxaan la kulanay maanta wax aad iyo aad dadka Soomaaliyeed oo dhan ama kaag ugu riday ka fajiciyay inta go'garadka ah iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed idilba waxa dhacday dawladda Soomaaliyeed inay xirtay jid kasta oo soo gala magaalada Muqdisho ama la isaga dhex socdo dhexdeeda magaalada Muqdisho dhexdeeda waxaan markii hore u tacsiyeynaa shacabka Soomaaliyeed 3 milyan ee ku nool magaalada Muqdisho in la joojiyo barodiiqdaas daraadeed jidadka looga xiray isku socodka loo diiday in isbitaalada aadaan iskoolada aadaan shaqadooda aadaan laga hor istaagay aad iyo aad ayaan ugu tacsiyeynaa shacabkaas iyada ah waxaan kala hoosta ka xariiqayaa in cabsida intaas leeg ee dawladda haysa ee ka haysa xisbiga wada jiriyo hoggaankiisa ee ka imaanayso taageerada shacabka oo cabsi laga qabo shacabka Soomaaliyeed ee taageersan xisbigan iyo isku soo bixiisa isku imaashaha ay u barordiiqayaan munaasabadaas iyada ah in cabsi laga qabo daraadeed culayska intaas la eg loo saaray magaaladani waa arin hoosta laga xariiqo mudan waxay ii sheegeen saraakiil badan oo ka tirsan ciidanka nabadgelyada iyo booliska oo la hadlay in shaqada maanta jidgooyada ay sameeyeen jid xirada ay ugu dambeysay maalintii ay madaxda igad ku shiraysa magaalada Muqdisho xadka intaas la eg iyo baaxadda jidgooyada intaas la eg iyo caqabadaha intaas la eg oo la dhigay waxay ku tusinaysaa awoodda uu leeyahay xisbigan iyo taageerada shacab ay haystaan taasna shacabka Soomaaliyeed ayaan uga mahad celinaynaa annaga u tacsiyeynaa dhibaatadii maanta soo gaartay waxaan rabaa inaan kala hoosta ka xariiqo jidgooyooyinka isbaara dhigashada taangiyada ama beebayada ciidanka booliska Soomaaliyeed ay ugu deeqday beesha caalamka ee hoteelada hortooda lagu jarayo biraha la qufulayo xildhibaanada la xayirayo shacabka la joojinayo waxa shalay ka hadlay xubnaha bulshada rayidka iyo hoggaankeeda waxay tilmaameen si cad u sheegeen in hadii la waayo isbeeska siyaasadeed ay dadku ku cabiri karaan ra'yigooda iyo aragtidooda ay ku sameeysan karaan nashaadkooda siyaasiga ah oo ay soo bandhigi karaan taageerayaashooda kula hadli karaan dadkooda hadii la xiro khiyaarka furan ama wadada furan inay tahay wado dadku inay dareenkooda ku cabiraan si ka duwan si nabadeed inay tahay saas daraadeed waxaan u baaqaynaa dawladda annagoo ka duulayna waxay maanta sameeyay annagoo ka duulayna waxay beedaba ka sameeyay annagoo ka duulayna waxa ay ka sameynayso maalin kasta xildhibaanada iyo shacabka Soomaaliyeed ay kula kacayso annagoo ka duulayna waxay maamulada dalka iyo gobolada ku hayso annagoo ka duulayna waxay ayada dhexdeeda isku hayso in la gaaray xilligii ay aqliga iyo maskaxda iyo dadnimada iyo soo noqon lahayd hadayna u soo noqonina shacabka Soomaaliyeed wax garadkiisa waxa uu baaqaynaa iyo siyaasiyiinta iyo inta damiir kale inta dadnimada laba in arintan laga hortago in arintan la qabto gacmaha nimankaas dhalinyarada ee talada dalka sida nasiibka ku helay in gacanta la qabto la joojiyo la istaajiyo marinkooda intaysan ka gudbin xadka intaysan dhaafin xuduudan ay ka talaabin oo ay dalkan iyo dadkan iyo shacabkan dhibaato intaas ka badan u keenin inaan si wada jir ah annagoo ka duulayna xadiiskii rasuulka kaleey salaatu salaam aha unsur akhaaka dhaliman oo madluuman walaalka haduu gardaran yahay iyo hadii la gardaran yahay gacmaha qabo inaan gacmaha qaban nimankaas dhalinyarada ah ee talakaboodka ah ee u dhaqmaya sidii 20 jir inay yihiin inaan qabano inta aysan dhibaato ka weyn noo imaanin annaga shacabka Soomaaliyeed ee la hadlayana waa kuwa meel kasta jooga waa kuwa dhib ka soo maray dawladnimada Soomaaliya u soo maray u soo tiiri tacabeelay ayaan waxaan ka digaynaa dadka odayaasha dhaqanka lagu sheegay ama culimada lagu sheegay ee laga hadashiyo oo la leeyahay dawladda taageera ee magaca dhaqanka iyo magaca diinta iyo magaca dadnimada shacabka Soomaaliyeed ku ciyaarayaan waanu digaynaa waxaan mar kale ka tacsiyeynayaa wiilashii halkan ku dhintay ee ku shahiiday waxaan kale u tacsiyeynayaa shacabkii maalinta lagu laayay magaalada Baydhabo oo sida arxan darrada ah loola mucaamilay ee taangiye ciidan ajnabiga lagu fasaxayna waanu tacsiyeynayaa ayagana waxaan leeyahay maalin xaqin aad heli doontaan ayaa imaan doonto xisbiga wadajir waa xisbi u taagan xuquuqda shacabka wuxuuna ku taageeyahay taageerada shacabka waxa ay dawladdu uga cabsanaysan ma haysan ciidan iyo awood aan leenahay ma waa taageerada shacabka maalintaas ayaan abaalgudi doonaa dhamaantii hadii la yiraahdo taageeradiina waa maasantiin wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh